fadhiso bismillahi rahmaani rahiim walaalayaal waxaan rabaa inaan idin sheegno dhibaatada ka taagan suuqa geela ee magaalada Gaalkacyo dhanka Galmudug dhibaato aad u ballaaran way geela la qalo maalin kasta magaalada la keeno waa xaarka oo siisatan way xaarkiisu hadda way ka muuqata waxaan dul joognaa maanta geel fara badan oo ilmeynaya ilin baa ka socota sidii qof caadi ah waxaan naloo sheegay oo sartooda ka muuqata in ay geelaan uu xiran yahay muddo bil ka badan waxaa sharka in la qalajiyo biyaha laga saaro iyo ayaa la qalajinayaa markii haragga asugu isku dhago kadib ayaa la qalayaa neef waxaa naloo sheegay neef waqti ku qaatay neef toban beri ku qalalaa haba dhinac baa loo rogaa qoraxda dhinac maanta dhinacan qoraxda jira galabka dhinac kale loo rogayaa maalinta uu qalala ayaa qaliinka lagu bilaabayaa magaaladan laga gadaa dadka ganacsiga ay samaynayaa ama waxaas ku jira waddadan aan dhashay weeye roob abaar baa ilaahay nagu kaxshay ilaahay subxaana watacaala waa arkay waxa dhibaato jira waddanka ka jira soomaaliya oo dhan meelahan nagu dhow ee hadda aan degannahay ee deegaanka dadkaan degan ee saatan geela yeelaya ay degan yihiin hal kilomitir marka laga baxo deegaanka ay degan yihiin roob baa loo tegayaa naq meelaha ay degan yihiin laguma arko roob in lagama yaqaan dhibaatooyinkana haysta oo ay ugu horreeyaan isbaaradu oo ay ugu horreyso geela xoolaha la xiraabayo neef la siinayn oo cunno la siinayn muddo laba bilood ama hal bila ilaah baa ku ilaashayo qofka muslimka oo qaadan kara ayaa weye qofka gadanaya weye nimanka maqaayadaha jooga iyo kuwa gadaa ee kala ee ka shaqaysa iyo kuwa dalaala iyo qof oo aan ka hadlin intaba ilaahi subxaana watacaala xisaabta waxaan codsanaynaa in loo istaago arrintan maamulka odayaasha culimada ardayda ganacsatada qof walba oo muslima ee ka danqanaya dhibaatada lagu hayo bahayinka aan mayeeraanka ee aan dhihi karin nalaga furo ee aan dacwoon karin u diyaarkaa qalliin ee u diyaarkaa inaan la sii biyo ee u diyaarkaa inaan la sii maaragtay ishaeg indhihii ay guteen oo sartiis waxaa moodaa mid caadiya moodaa laamiyeeli baa moodaa sartiiska neefka hadda aan ku taagannahay ilaah baa idinku dhaarshay cunaan ka raadinaynaa wax loo dulqaadan karo maahan ciddii qarinaya ciddii dayn lahayba musiibo ummadda haysta way waxaan maanta ka u nimid oo ay taariikhdu tahay 14 Ramadaan 9 bisha Juun ay tahay waxaan u nimid inaan ummadda la wadaagno islaamka waxaan ka qaban karnaa waxaan ka codsanaynaa arrintan in laga hortago in ummadda loo sheego in laga digtoonaado guriga inaan la keenin waxa noocaas loo qalay waxaa nooca loo qalay in guriga la keenin qofka uu awoodi waayo inuu asxaan u sameeyo neefkaas inuu asagoo baktiga ku keenana asxaan macnaha weye wax kale ilaahay ma jiraan tusaalaha diin islaam ee diinta ma jirto neefka waxaa u talgalay diinta sharci bay leedahay neefka markii la qalayo waxaa lagu talagalay in loo raaxeeyo in biyo la siiyo birtana laga afeeyo in aan laisku gowracin iska daa in biyo la siiyo bil iyo bar ka hor baa neefkaa la qalajiyo hadda waa laamiyeer caadiya arrintaan ka digaynaa waxaan ka samaynaynaa maaragtay isheeg ciddii dood ka qabta iyo ciddii maaragtay isha u aragtay inuu saatan xal tahay ayadaa hadli doonta laakiin dadka muslimiinta qaaraan maanta waxaan ka codsanaynaa arrintan in laga hortago aad baan uga xunnahay dhibaatay aan soo aragna maanta laga soo bilaabo dhinacaas ilaa dhinacaas waxaas xoolo meesha ku xiran lama sheegin laguma arko laakiin kuwaana bilbil iyo loola beoda laqeen way istagi weyeen marka waxaan ka codsanaynaa markay ukaxan arrintan aad baan u mahadsantihiin dhalinyarada ku xaqaata arrintan inay wax ka ogaadaan insha allah mana ka hari doonno way dabagelaynaa dadka noocaas sameynaya meel kastaan ka sheegi doonaa awooddeena inta tahay ayaa ku nahiyana waa mahadsantihiin